Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isku soo noqod wanaagsan dhammaan reer YouTube meel kasta dunida daafiisa joogtaan. Waan idin salaamay saacad kasta idin tahay ha idin wacnaato YouTube-keena daawashada noo badiya, like-da noo badiya. Waa inta keliya aan idin ku leenahay maanta idin dhahno noo sameeya marxiyo. Ya. Marka maxay hayday maanta qadayar baan karsanaynaa. ciyaalkan iskuulka geeyay waan kasoo laabtay weli waa aroor laakiin shaqo ma aadayo gurigan iska jooga waxaan rabaa bariis yar oo cad inaan kalluun iyo bahal la dhaho sanuunad ama suugo waxaad u taqaaniin laakiin rejabuuti ku sanuunad bay yiraahdeen inkastoo wax badan ay wada maqan yihiin laakiin saa ay tahay iska ciyaal iyo hooyadoodan baa iska cunaayo dad oo special ma cunayaan markaan karsanaynaa sila socod wanaagsan insha Allah YouTube-kana meel gaarsiiya subscribe-ka noo badiya like-ta noo badiya waxba idinkama dhibayso qofka walaalka amarba haddaad channelkiisa daarto daawatay sug videoga intuu dhamaanayo like-tuna waa inta kaliya idinku leeyahay Soomaalinimo iyo walaaltinimo like isaar بالله عليك المهم وين شيكيسان دونا cuntada aynu karsanayna inuu ku dul sheekaysan doona insha Allah isla socod wanaagsan dhamaantii waan wada jeclahay hadda gurigii baan soo galay baradhadii baan dhashay inkastoo aan idin la wadaagin laakiin baradhadii waan soo dhilay bariiskii baan dabka saaray qudaartii yaraydo fridge-ka igu jirtay baan soo qaatay waanagii idin dhahay qudaar badan iima taalo laakiin waxaan jeclaystay maadaama guriga iska joogo inaan idin la share gareeyaan iska jeclaystay sidii caadada inoo ahayd markaynu wax karinayno ama wax sameynayno waynu sheekaysanaa sidii dad isla jooga oo isla fadhiya ayaynu u sheekaysanaa taasna waa waxa aad iyo aad ii xiiso geliya marka aan runtii YouTube duubayo xalay waxaan aaday markaan dhameeyay waxaan aaday cashaan iska sii aaday oo gabadha oo maad aragtay wadanka imaatay baan soo dhaweynayna cashaan iska sii aaday cashadii markaan iska aaday baa waxaan iska sheekaysanay gabdho aan iska sheekaysanay marka maxay ahayd waan iska soo baashaalay waan soo raaxaysanay kabacdina waan kasoo dareernay videogeeni intaasuu kusoo gabagaboobay marka maanta waxaan idiin hayaa sheeko aad iyo aad idin xiiso gelinaysa runtii waxa aad maxay ahayday ka maxaan ku idhaahdaay ka dhiibanaysiin ood ka dhiiban kartiin qaybta comment-ka nagula wadaagi doontiin waxaan maanta waxaan hadda videoga duubayo waa second morning kan duubaya because xalay ima hirgelin inaan videoga duuba ama soo upload gareeyo maanta markaan ilmaha iskuulka geeyay baan gabdhays aragnay kabacdi gabdhii markaan aragnay baanu hadalay isweydaarsanay waxaan ka hadalnay oo ka sheekaysanay sheekadii baan rabaa inaan idin soo bandhigo waxaan ka sheekaysanay ilaahay ba naguma keenay intuu ku keenayna Allah ka saaray bal haday isu ka qabato ilmahaagii iyo ninkii adiga ku qabay oo aabahood maaha nin aad soo guursatay maaha waa ninkii adiga ilmahan aad u dhashay ilmaha waad aragtay markay teenager-ka noqdaan dabeecada waxay iska la soo baxaan ma aragtay dabeecada adagna de waxa uu keenaya waa garan kartaa waxa weeye hormonkii oo isbedelaya ilmihi caruurnimadii telefoon baa iga soo dhaxgalay ilmihi inta caruurnimadii ka soo baxayo soo noqonay qof weyn childhood-kii ka soo guuraya adulthood isku bedelaya maadaama bodigii change garoobayo uu de isbedelayo uu qof weyn iska soo bedelayo waad garan kartiin waxyaabo badan baa ilmaha iska bedela marka maadaama ilmihi wax walba iska bedelo dadkeena Soomaaliyeed waxay ku dhiban yihiin dhaqankii iyo diintii iyo wadankan aynu nimada gaalada saddexdaa shay baa iskaga qasan oo confuse ay ku yihiin ilmihi waxay rabaan inay ula dhaqmaan sidii iyaga lagu soo koriyay Soomaaliya markii la joogay de wadankan Soomaaliya maaha wadankuna wadankii islaamka ahaa maaha waa wadan maadartay wadankii ka duwan dadku waa dadkii ka duwan waqtigu waa waqti wixii ka duwan
marka laakiin waa inay dadka waalidku waxaas ay fahansan yihiin in ilmihii la dhaho waa ilmihii baa caasi waalideen noqday ilmihii baa xumaaday oo ilmihii pressure la saara maaha ilmahan anu waxaan dhahay in gabdhow ilmahan markaynu inagu dhalaynay wadankanba ka sokow waalidka iyo ilmaha qofkee doorta inuu ilmo adduunka kusoo biirayo waa waalidka waxa doorta ilmahan dunidaba ma jooginba markaad adiga dooratay inaad ilmo dunidan kusoo biiriso ood ilmo dunidan aad keento waa inaad carqabad kastoo kaaga timaada aad diyaar u noqoto waa inaanad ka complain garayno ka dacwoonin ilaaha weyne waaxidkoon baa loo dacwooda ilaaha weyne waaxidkoon baa ilmahaaga loo barya laakiin waa inaad ilmahaaga taqaantid saad ula dhaqmi lahayd sidaad ilmahan kusoo jiidan lahayd sidaad ilmahan beeyadan xun aynu joogno aynu ilmaha ku hilmaamsiin lahayn aynu inagu maadaragtay is ogolaysiin lahayn bariiskeeniba halkan noogu soo bislaanaya maanta waxaynu karsanaynaa kalluun iyo bariis sidaan idinku soo sheegayba hordhaca marka hadda hawshii waan wadaa qudaartii wixii baan jarjaranayaa oo suugadii wixii baan soo saaranayaa oon soo karinayaa sheekadeenina waynu wadanaynaa marka haddii aad adigu fahmi weyda ilmahaaga dad kaloo kuu fahmaya oo ilmahaagii adiga diyaar u ah oo ilmahaagii kaala wareegaya oo ilmihii inuu brain wash ku sameeyo ayaa jira wadankan uu kula joogo oo gaaladan inuu nimidnayba marka waxay tiri gabadhaydii iyo aabaheed baa waxay tiri gir iyo gir isu soo waxay tiri ismari waaye kas gabadhu way soo weynaatay teenager bay noqotay waxay tiri horta marka ugu horreysa waxay tiri gurigan hala naga saaro guri barayfada hala noo kareeyo waa laga diido waxa la yidhi naayahana wareerinin waa la iska dhaafay markii taas hadda laga yimiday waxay tiri aabaheed baa inantii yarade controolkii ku badiyey saacadda markay soo kacday asxaabteedii inay la wareegto saacadday rabto baxdo saacadday rabto soo gasho aabaheed wuxuu yiri anu gabadhan maba arki kariba inuu qaaliyo inuu dilo inuu gabadhii uu maadartay cadaadiyo isku dayo gabadheereed waxay tiri anigu hadda ama hooyadeed waxay ku tiri hooyo waa inaad laba xaalo mid soo gasho waa inaad aabahay doorato waa inaad aniga i doorato de gabadha waxay tiri casweeladiin baa tahay akhlaaq ma qabtid aabaha baad saa ku leedahay way la dagaalantay gabadhii albaabkay ka saartay gabadhii yaray waraabe ayay afka uga gashay balaayo oo dhan ayay baratay sidiiba magaaladii duurkeeda ku xishay marka waxay tiri anigu ma nin weyn oo i qabo oo gadhiyo gafuur leh oo sharaf leh baan aniga banaanka u saaraa marka anigu waxaan idhi anigu ilmo maanta aan dhalay oon dunidan keeno hilibkaygana bannaan ma dhigaayo dee nin dhan oo i qabo gadhiyo gafuur lana bannaan ma dhigayo laakiin waxaa la yidhi waxa ay ilkana ku nabad galaan baa la yidhi carabkuna ku badbaado maa la dhihi jira mahmaahdeede waa ina la sameeyo waxaan samayn lahaa aniga to be honest hadday arrintaasi qabsan lahayd ilaahay ba iguma keeno waxaan samayn lahaa anigio aabaheed baas la fariisan lahayn aniyo xaajigayga waan ka tashan lahayn waxaan dhihi lahaa waryaahe ilmahani waa ilmaheeni waana gabadh wiil iyo gabadh baa horta waa kala daran yihiin boo gabadh cawra ilmahan maxay hayday dee bannaan uma saari karno oo bilaayo oo dhan baa maanta afkay noo soo kala haysa ama adigu walaalo wadanka ka yara dhoofo dee holiday yara qaado dee wadankii ka yara tag ama walaalo intaad baasaboorriyo tigidho noo diyaarisa anagu aban guurno bal holiday intaan inantii geeyo bal wadankii dhaqankii iyo wixii aan kusoo baro yaa ama waxaan samayn lahaa walaalo bal adigu intaad guri yara ijaarato gurigu waa gurigaagii iska imow ka cun ka cab laakiin habeenkii oo kale intaad guri rag iskala ijaarato hadday taasi hirgelaynin banaankan fadhiya aan ku duubay codka ku saaraya diyaarad baa ay dul maraysa diyaaradna ma helicopter weeye marka maxay ahayd haddii ood maad aragtay aroona inaad ka maqlaysiin haddii oo maaragtay arrinkaasi hirgeli weydo oo dee ama yimaado like financial xagga lacagta oo kale ama dee carqabad oo nala soo diristo dee awoodeedii aan yeelan weyno ilaan dadku isku jeeb maaha aynu awoodeedii yeelan weyno inu tigir waxaynu ilmahay iyo wixii oo dhan ugu goyno weyno
ama aad adiguba tiraahdo dee war waan shaqaynayaa ana shaqadaydii kama tegi karayo ana waqtigu iima saamaxaya inaan hadda meelo kala tago noqon waayo walaalow rag dee sharaf leh adigu ninkaa weyn ee 5 waqti tukanaya ee saaxiibal salaadka een lumaynin een halaabaynin baa tahay guri intaad iska karaysato nimanka ragga la yiri degto bal inta gabadhan isbedelayso xoogaa bal halka yiri joog baan ugu dhihi lahaa baan idhi ma garatay laakiin may dhacdeen dee ilma aan dhalay ma hadduu dee tago ilmo horta tagitaan wuu tegi karaa isagaa dee choice kale laakiin ilmahani way ku dooransiisa waxay ku tidhi anigii aabihin ma wada joogi karno u caqli celi ilmihii isku day inaad la hadasho wax fahansiiso way soo istaagto waad awoodeeda waad yeelan weyde dee arrinkaasaan anigu samayn lahaa baan idhi may gabdhihii kale way igu diidan waxay dhaheen maya waad qaldan tahay oo maxay ahaydee maxaa keenay ma nin dhan oo garaya gafuurle ood guursateen ood intaasoo san isla noolaydeen oo cunugtan xuna oo hadda boodboodaysa shalaytoo la soo koriyey oo maxaan ku idhahdaa gawaari ku wado iskuul la geynayo horta waxaan hadduu iskuul geynayay iyo hadduu juru meedhayay iyo hadduu haynayay iyo hadduu dhakhtar geynayay waa waajibaad waalidnimo oo na saarantaa oo dee ilmahan markaynu ifka keenaynay yaa dee umaanaan keenin maxay ahaydee wax kale waa inaan u keennay inaan ilmaheenu ka soo baxno waajibaadkay nagu lahaayeen dhakhtar inaad geyso waad ku qasbantay iskuul inaad geyso waad ku qasbantay taas mid lagaa baryayay ma ahayn way fiican tahay inuu ilmuhu ku ixtiraamo way fiican tahay inaad ka heshid laakiin wadankeedii maan joognaa meesheedii maan joognaa ma joogno waa sidii aan ku badbaadin lahayn ilmaheena inaguna ku badbaadi lahayn oo anaaniya xaajigeena ka tashano laakiin inaan sidii wadankii u dhaqano nidhaahno oo waa wareey gabadhii waxay noqotay caasi waalideynay wiilkii wuxuu noqday caasi waalideynay oo inagu ilmihii iska erino dee inagii hilibkeenna hayn haddaan hoosteenna gashan weyno oon ilmaheennii sasaban weyno oon ilmaheennii cadowga ka ilaashan weyno dee yaa cadowga inooga ilaalinaya kalluunkii baan hadda soo jarjaraya oo wax soo marmarinaya oon shiilaya marka haddiinu inagu cadowga ka ilaashan weyno dee yaa inooga ilaalinaya cid nooga ilaalinaysa male hadhow toolana adiga waxay kugu noqonaysaa too late waad ka murugoonaysaa waad madaxa un baan suugada ku daraya suugada sanuunada madaxa keliya lagu daraa iyo dabada iyo waxaasa lagu daraa laguma daro kalluunka laguma kariyo inta kalena waa la shiilaa kalluunka saasa loo kariya marka ani hadda idinma tusaynin sida wax loo kariyo just wixii aan maanta sameeyey un baan maxay ahaydee idinla wadaagaya oon jeclaysto inaan videoga duubo marka anigu saasaan idhi laakiin gabdhihii kale waxay dhahdeen may waad qaldan tahay ninkii waad ku geftay ninka inaad saarta maaha waxaan idhi ninkani waa nin weyn nin halaabaya nin xumaanaya iyo nin maanta suuq galaya maaha waxaan la badbaadinayana waa ilmihiisii uu isagu dhalay oo maanta maxaan ku idhaahdaa ka saaran yahay waajib ka saaran yahay ma garatay dee marka maxay ahayd labada waalidan waxa fiican inay wada fadhiistaan oo ilmahooda ka tashtaan oo ilmahooda arrintooda isla meel dhigaan oo sidii maad aragtay ay la samayn kara la sameeyo laakiin aniga marnaba kuma raacsanay ilmo in bannaan la dhigo adi hadduu ku dhigay oo ilmihii intuu kaa tegay oo kaa gacan taagtaatay taas waa different story oo dee awoodeeda ma lihido ilmihii guri kuma soo celin kartid laakiin ilmo adiga intuu kula hadlay ku yiri ma joogayo gurigan for that reason ya kaadi badana waa loo gogol badiyaa bal waa fiiri oo bal adigana waxaad tiraahdaa haye walaalo bal adigana halkaa deg inantan waa ama wiilkan wuu koraya uu yaro koraya hormankiisa wuu isbedeli doonaa normal uu iska noqon doonaa waa la iska sasabi doonaa waxyar markuu maqnaado aabbaha ku laabo oo dhe maxaan ku idhaahdaa yaaba intaa kuma maqnaan kara bannaan wuu ku rafaaday please aaba ha yimaado guriga inaga daa waxanaad wado oo ilmihii iska sabaalayso laakiin haddaad tiraa waan kibrinayaayo maxay ahayd waa kibir waxaan iyo ilmihii baan kula boodayaan dilayaan jajabinaya ama ku qaylinaan leeda caasi waalideen oon habaaraya dee adigu ma naftaada haddaad habaartana adigunbay kugu soo laabanay habaarkaas oo dee maanta cidaad habaartay maanta ma jiro haddii aad qaylidood bud qaadatood ilmihii eridan adigunbuu kugu soo laaban ilmahaagii oo ilmahaagii weeye hilibkaagii weeye waxaan bannaanka yaalle ee maad aragtay aad hadda aad u dhigtay bannaanka eed bay u baylahisay marka bal arrintaas wallaahi anigu kolley intaasaan dhahay ilaahayna naguma keeno
waana arrin aad oo adag kala doorinteeda qofka weynna ma fiicnayn guri laga saaro ilmahana ma fiicnayn guri laga saaro laakiin arintaasaanu ka sheekaysanay saaka deedna waxaan isiri maadaama videogaba duubayay uma waxaan isiri maad iskaga sii dartid oo bal dadka meesha iigu jirana maad u dhiibtid in sheekada maad u dhiibtid bal iyagana waxay ka soo dhahaan markaa qurbahani waad aragtay uu iska dhib badan yahay banaankii waxaa guuxii baabuurta iyo shanqartii ay ugu badatay gurigaas ka soo galay marka maxay ahayday in waxaa weeye ma taqaanaa in bal dadkii la wadaag baana siri kolley waa arrin aad u adag ilaahayna intuu tusayna annagana ilaahay ha naga badbaadiyo marka suugadii wataa waan soo kariyey bariiskii waan soo kariyey insha allah sheekadaasna wixii fikirkiina kasoo dhiibta hadduu ilaahay raalli ka noqdo kalluunkiina waan soo shiilay marka maxay ahayday intaa yarban maanta idinla wadaagayo wax badan meesha kuma haynin videoga subscribe-ka iyo like-ta insha allah noogu dadaala hadduu ilaahay raalli ka noqdo watch time-kana noo badiya oo tv markaad daartaan videoga make sure inu videoga dhamaysataan even haddaanad adiga daawanayno oonad rabin inaad daawato waxaad samayn kartaa videoga daaran baad iskaga tegi kartaa danahaaga iska qabsan kartaa intaasna ilmahana waxaan u karinayay chicken because iyaga fiishka waxay necab yihiin inay ka gurguraan lafaha iyo waxayna ka gurguraan bay necab yihiin marka fiishka waxaan u sameeyay inta waaweyn u naaska cunaynta yaryarna kale waxaan u kariyay chickentoodaas I think chickenta waxaan u malaynayaa inaan iska degdegsanaan nila wadaagin because schoolkii baa iga gaadhay oo si carriyo ilmaha ka soo qaadayay marka kulli wadankan inaga ma aragtay wadankan soo raadsanay ilaahayna ha inaga samata bixiyo awlaadana allah inoo xifdiyo inta banaanka naga joogtana ilaahay hanoo soo celiyo hanooga soo celiyo banaanka inta jeelasha ku jirta ilaahay jeelasha hanooga soo saaro hooyo walba iyo aabo walba waa murugaysan yihiin oo dee wadan xuno waxaanu nimid maad aragtay aan wadankeenii ahayn oo ilmihii maad aragtay rafaad badan iyo dhibaato badan lagala kulmay waalidiinta oo stresska iyo rafaad ku haystaan ilaahay rafaadka ha ka saaro aan isu soo duceyno dhammaanteenba Soomaaliya meel kastoo joogtana aan caawino waxba yaan maad aragtay in lays xamanin waxba yaan maad aragtay farta la isku fiiqin waxba yaan la dhiin heblaaya kalluunta iyo hebel kalluumay you never know adigaba in lagu soo jiro ma garatay intuu ilaahay u hagaajiyeen allah u barakeeyo inta ma aragtay dhunsanna allah soo haynoo wada xaftiyo haynoo soo wada xereeyo marka dhammaanteen videoyo fara badan insha allah noo soo duubi doona hadduu ilaahay raalli ka noqdo idinkana maad aragtay ay daawashada iyo like-ta igu dhiirigeliya comment iisoo qora insha allah anigana intaan alxamdulilah intaan idiin duubi karo wax waan idiin duubi salad yar baan halkan kusoo jarjaray mayonnaise-kaasaan idin tusayo on idin dhahaya saladkaan ku daraya bariis baan halkan kusoo gurtay aniga maadaama uun rabay maad aragtay before intaanan ilmaha iskuulka ka doonin inaan iska sii qadeeyo maadaama uun fiidnimada casho iska aadayay waxaan rabay inay horey calooshayda uga baxdo cuntada ani badanaa ma cuno lunch ma cuno markaan casho aadayo ma cuno laakiin markaan iska waxay kariyay very early baan kariyay aroor baan kariyay qadadan markaan iskuulka kasoo laabtayba waan kariyay around 10 o'clock meelahaasaan kariyay quraac badanna ma cunin oo waxaan ku talagalay ahayd inaan cuntadan cuno aan ku talagalay marka fiishkaygii aan kusoo ritay waan soo gurtay bajiyo yar baan shiilay waan u maleeyaa I don't know haddaan kusoo daba daray videoga bajiyana waan sameeyey waan shiilay marka dhammaanteen insha allah subscribe like comment share waa dhaxalka keliya teen idinku leenahay waa halkii muxuu ahaa qorax ku dheegle qorax ku dheegla wuxuu dhahaa waa dhaxalka keliya idinku leeyahay reer YouTube oo dhan waa dhaxalka keliya tay idinku leeyihiin marka wataa cuntadeedan soo gurtay xabxabkii aan shiiday baan soo shubtay qolka fadhigaan iska imid aan iska soo fadhiistaan cuntadayda soo dhigtay halkaasaan iskaga qadeeyay ku tukaday waxaan iska daadaawaday ka bacdina
ilmihaan soo qaaday haddana habeennimadii weeye markii aan baxayn cashada aaday marka waxba idin lama wadaagin wax badan only intaa yarun baan soo geliyay because dadka ma jecla in wax laga duuduubo ma jeclo videogan intaasuu kusoo gabagaboobay intaynu dib isku arkayno sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum